Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaa idin wadaa filim qiso dhab ah kaasoo soo baxay 2017 laguna magacaabo Broken Smart Hero. Filimkeenu waxa uu ku bilaabanaya nin ordaya meel bannaan ah kaasoo ay niman fardooley ah cayrsanayaan. Ninka waxaa lagu magacaabaa Joy waana uu ka orod badiyey fardooleyda waa uuna dhoolla cadaynayaa wejigiisu. Filimkeenu waxa uuna tusayaa cunug yar kaasoo ah Joy yaraantiisii waxa uu ka ordayaa wiilal kale oo asaga ugaarsanaya. Joy waxa uu dhex ordayaa suuqa si uu uga baxsado ciyaalka. Waxa uu isticmaalayaa gabar buuran oo suuqa ka adeeganaysa. Carruurtu waxa ay ku dhacayaan gabadha buuran way istaajinaysaa. Waxa ay qabsanayaan xoogaa miro ah waa ayna ku tuuriyeynayaan isaga. Joy waxa uu la kulmayaa feeryahano waana uu daawanayaa dagaalyahanada adeerkiis oo la dhaho Charity. Waxa uu bixinayaa aalamiitada feer. Waxa uu u sheegay inuu weydiistay aabihii kaas oo garanaya sida keli loogu dagaalamo, laakiin Joy waxa uu og yahay aabihiis inuusan barayn dagaal. Charity waxa uu ka codsaday Joy in uu soo bandhigo dhaqdhaqaaqa dagaalkiisa. Waxa uuna soo bandhigay xirfad feeryir oo cajiib ah. Joy aabihiis waxa uu ku biiranayaa qaadashada Joy macbadka. Waxa uu u geynayaa wadaadka. Waxa uuna u sheegayaa in uu wiilkiisu had iyo jeer la dagaalamo wiilka guddoomiyaha, taasoo ay loo baahan yahay in laga taxadaro. Wadaadku waxa uu u sheegayaa in ay ilmuhu inta badan isdagaalaan. Joyna uu yahay wiil caqli badan. Koox wiilal ah waxay sugayaan Joy si ay u garaacaan asaga. Joy waxa uu qaadanayaa go'aankiisa. Gacantiisa waxaa ku jira xoogaa miro ah oo ka kooban 3 qaybood. Waxa uu isticmaalayaa inuu ku bilaabo training shakhsiyadeed ah. Waxa uu weerarayaa Jer iyo asxaabtiisa. Waxa uuna la yimid meeshii uu ku tababaranayay. Waxa uu ku dhiiraday inuu weeraro halkii uu awal ka carari jiray. Joy waxa uu awooday in uu garaaco dhammaan xitaa kii wata carruurta ee Jer. Wiil kale waxa uu u sheegayaa in uu dhigbaxay wiilka guddoomiyaha. Waxa ay kale u sheegayaan in uu arrintaa dhibaato ka dhaxli doono. Sidoo kale filimkeenu waxa uu dib ugu laabanayaa Joy oo weli ordaya. Waxa uuna ku guda jiraa inuu ugaarsado Jer iyo asxaabtiisa. Waa ay awoodi waayeen inay helaan. Waxa uu ka raadinayaan kor. Joy waxa uu soo weeraray ayaga hal ilaa uu ka helay Jer uu ka tuuray fariskiisii buuna kala tagay. Joy waxa uu aaday xerada feerka halkaas oo 2 feeryahan ku dagaalamayso. Joy waxa uu ku guuleystay dagaalka hal jug. Tababaro waxa uu lacag kaga urursaday sharad. Joy waxa uu galay dagaalo badan waana uu guuleystay dhammaantood. Dagaalyahanada waxaa la weydiiyey haddii uu jiro qof kale oo la dagaalamaya Joy. Dadka badankoodu waa ay iska wada khaafiyeen. Waxa uu soo baxa waa la waayay ilaa uu soo baxay hal nin oo yiri aniga ha ila dagaalo Joy. Waxa uu dhigtay xoogaa lacag ah iyo seeftiisii. Joy waa uu la dagaalamay ninkii laakiin waa la garaacay. Waxa uuna ku dhacay harada. Joy markii la soo saaray ayaa loo sheegay in uu guuldaraystay. Waxa uuna galay ciriiri. Waxa uuna aaminay in ay jiraan xirfado iyo taalantiyo kale oo u baahan yahay in uu barto oo heer caalami ah. Joy waxa uu aaday xero tababar oo cusub. Tababarihiisa cusubna waxaa la dhahaa Tiang. Tababaraha gabadhiisa waxaa la dhahaa Saroy. Waxa uu ku dhagagtay dagaalyahanadu hooyadeed. Waxa ayna weydiisay inay weli rabto sida loo dagaalamo. Saroy waxa ay tiri haa hooyadu waxa ay ku soo celisay taas haddii uu kugu maqlo aabbaha uu ku karbaashi doonaa. Joy waxa uu la hadlayaa mudanihiisa sidoo kale waxa uu la dhacay Saroy. Mudanuhu waxa la weydiiyey magaciisa Joy waxa uuna isku baray in la dhaho Thank D. Mudanuhu waxa uu go'aansaday in uu ka qaado tijaabo dagaal. Tababaruhu wuxuu arkay inuu fiican yahay Joy oo tababaran karo. Goobtii waxaa qarribay Jer iyo ciidamada aabihiis. Waxa ay fiiriyeen Joy ilaa ay soo bandhigeen Thank in uusan ahayn halka Tiang uusan wax fikira ka haysan cidda uu yahay. Arrimuhu waa ay kacsan yihiin oo Joy waa in uu ismuujiyaa cidda dhabta ah uu yahay. Joy gacmihiisa waa ay xireen. Waxa ayna fuulay faraska isaga oo ku jiidaya dhulka. Taas naguma filna waxaa yiri taliyihii watay ciidanka oo ahaa Jer adeerkiis. Waxa uuna amar ku bixiyay in la gubo xerada oo dhan halka ay dagaalyahanadu u halgamayeen siday uga hortagi lahaayeen. Ayaguna waxa ay gubeen xoogaa ka mid ah xerada. Joy waxa uu ka baxsaday xarigii. Waxa uuna caawiyey waana ay carareen mana aysan haysan fursad kale in ay cararaan maahane. Joy waxa uu raaligeliyay wax walba oo meesha ka dhacay. Waxa uuna diyaar u yahay in uu ka baxo. Waxa uuna u sheegay in uusan halkan sii joogi karin. Tiang waxa uu sheegay xarun jimicsi taas
taas oo ka caawin karta horumarinta xirfadiisa. Joy waxa uu u tagay wadada, waxaa daba socday wiil dhalinyaro ah oo la dhaho Bonkret. Joy waxa uu weydiiyey sababta uu u daba raacayo cunuguna waxa uu ugu jawaabay in uu daba socday xoogaa ayna isku wada yihiin. xaqiiqada wiilku waxa uu la dhacayba xirfada dagaalka. Joy waxa uu soo gaaray suuqa masraxa Shiinaha lagu soo bandhigayo. waxa uu ku soo dhawaaday gabar taasoo la dhaho Muwai, waxa uuna weydiiyey wax ku saabsan bandhiga, waxayna u sheegtay in ay caawa tahay. habeenkaas waxa ay ku hoydeen goobta waxayna awoodeen in ay bandhiga daawadaan. Joy waxa uu la dhacay bandhiga sida uu u sareeyo boodboodka, waxa uuna qaadanayaa nasasho, waxaana siiyey casuumaad in uu soo noqon karo mar kale. mid ka mid ah soo bandhigayaasha oo la dhaho Master Lee oo ah Muwai aabaheed, Joy waxa uu weydiistay in uu baro habka boodida. Master Lee waa uu diiday. goortii uu mar labaad bilooway bandhiga, Joy waxa uu ku labistay sida dharka atooraha showga kulana dagaalay Lee. markii uu dhammaaday showgu waxa uu siiyey laaluush. Master Lee waxa uu cabay saa'id, waxa uuna aqbalay in uu tababaro habka boodida. Joy maalintii xigtay, Cargo waxa uu u soo weeraray Jerry iyo adeerkiis. waxa ay dileen waardiyayaal badan, laakiin gabadh geesi ah ayaa si toos ah uga hortagtay. Joy ayaa u soo gurmaday oo wax u dhimay burcadda markii ay ka difaaceen nimankii xumaa. Joy waxa uu gabadha siisay fargal, waxa ayna u sheegtay in uu ilaaliyo si uu dib ugu soo celiyo marka xigta ay kulmaan. Joy waxa uu tagay xerada tababarka ee Meg, ninkii Master Tiang u soo tilmaamay isaga oo Masterku wax u sheegaya inuu la dagaalo dagaalyahan. Joy waxa uuna ka guuleystay Master Meg, waxa uuna aqbalay, waxa uuna u bilaabay barista casharada. Meg iyo ardadiis waxa ay ka qayb geli doonaan tartan dagaal yahano kale ay kala qayb qaadanayaan. Joy waxa uu arkay gabadhii uu badbaadiyey, iyaduna waa ay aragtay. ugu dambeyntii waa ay si soo raaceen, waxayna bartay magaceeda oo ah Ramyang. Joy waxa uu doonayay inuu dib ugu celiyo farkashigii, laakiin iyadu ma aysan rabin taas, waxayna leedahay waxa ka qaadan doona marka la gaaro waqtiga saxda ah. waa uu bilaabmay dagaalku. 3 ka mid ah kooxda Meg waa ay guuldareysteen, laakiin markii uu Joy bilaabay dagaalka waa uu guuleystay. markii uu madaxa uga dhuftay sux, Meg waxa uu u mahadceliyey asaga. Joy si uu u soo furtay magaciisa inuusan ahayn wax uu soo bandhigaya, laakiin warqad ayuu u dhiibay oo u diray in uu la kulmo sayid kale oo uu ka barto xirfada seefta. Joy waxa uu bilaabay socodkiisa isaga oo haysta Boker, waxaana isla markii ku soo biiray Muwai iyo Tuek oo ahaa dagaalyahankii wax yar ka hor ay dagaalameen. waxayna awoodeen in ay helaan sayidka seefta ee Master Biang. xaqiiqdii asagu waxa uu jecel yahay labo, waana cabitaanka iyo hurdada. si kastaba ha ahaatee, waxa uu u sheegay inay diyaar u noqdaan tababarka, isaguna waxa uu cadeeyey in uu yahay xirfadyahan uuna ka adkaaday dhammaantood. Master Biang waxa uu siiyey tababar waqti yar. ugu dambeyntii waxa uu ka codsaday in uusan hayn intaa in ka badan in uu baro. Joy iyo asxaabtiisu waxa ay heleen seefo iyo mindiyo loo hadiyeeyey. jidka ayay sii socdaan, waxa ayna qaadanayaan nasniino qayb ka mid ah kaynta. Jerry iyo adeerkiis waxa ay arkeen kooxda, waxa ayna soo toogteen. halkaas uu amar ku bixiyey in la laayo dhammaantood taliyaha. Joy iyo asxaabtiisu waa ay isdifaaceen. Joy waxa uu dilay hogaamiyaha Jerry, adeerkiisa Jerry waa uu daawanayay, waa uuna cararay sidii fulaygii. Joy waxa uu la soo orday Bonkret oo xabadi ku taalo si uu u caawiyo. faraska dushiisa ayuu la soo raacay. nasiib xumo waxaa la dhacay faraska. Joy waxa uu ku qaaday saaxiibkiis gacmihiisa si uu tuulo u dhoweyd ugu geeyo, isaga oo weydiisanaya caawimaad, balse dadka lama aysan hadlin. waxa uuna isku dayay inuu iibsado farkashigii gabadhu siisay. mulkiilihii waxa uu tuuray farkashigii, waxa uuna isku dayay inuu sameeyo dagaal, waxa ayna soo weerareen halka uu asna isdifaacay. waxaa joojiyay dagaalkii nin kaas oo caawiyey. ninku waxa uu isku diyaarinayay in uu tago Joy. waxa uu u yimid, waxa uuna weydiiyey magaciisa iyo meesha uu ku nool yahay, sababtoo ah waxa uu rabaa in uu maalin u abaalgudo. ninka magaciisa waa Ramyang. ka hor inta uusan fuulin faraska, waxa uu celiyey faraantigii. Joy waxa uu la kulmay Ramyang iyada oo u sheegaysa gudoomiyaha magaaladu in uu xiiseeyo boxingka uuna qabto
qabto dhacdooyin feerar ah, waxa ayna ku dhiirigelisay inuu ka soo qayb galo dhacdooyinka feerarka. Dhanka kale, Bonkred waa uu soo kacay, waxa uuna dareemayaa fiicnaansho, waana uu ka soo kabanayaa dhaawicii. Joy iyo Twig waxa ay aadeen dagaalka si ay uga qayb qaataan. Joy waxa uu arkay ninkii kaas oo horay u dilay markii uu ku dhacayay webiga, oo kaasoo magaciisa la dhaho Haw. Haw waa adeerka Rumyang iyo guddoomiyaha madaxa ilaalada. Dagaalyahanadu waxa ay yimaadeen goobta. Twig waa uu guulaystay dagaalkiisii, halka Joy uu dib ula dagaalay Haw waa uuna ka guulaystay. Guddoomiyuhu waxa uu weydiiyey haddii uu tabar kala hayo cid la dagaasha, waana uu aqbalay, waana uu guulaystay. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay dhammaantood in ay halkan tartanka ku xiran yahay, guulahoodana lagu abaalmarin doono. Guddoomiyuhu waxa uu isku habeeyey guulaystayaasha si uu u abaalmariyo, laakiin waxaa toogtay Ryang meel fagaara ah ayuuna ku dhacay asaga oo koox rag ah geesaha uga jiraan. Joy iyo dagaalyahanadu waa ay difaaceen guddoomiyaha, waana ay awoodeen. Joy waxa uu qaatay Ryang, waa uuna aamini la'yahay inuu Ryang isku dayo inuu dilo guddoomiyaha. Joy waxa uu qoriga ku dhejiyay madaxa Ryang, waxa uuna weli xusuusan yahay inuu isagu raalli ka yahay. Waxa uuna isagu dib ugu soo celiyey qorigii, waxa uuna u sheegay inuu naftiisa u huri karo, waana in ay cid kasta uu iska dhaafo. Ryang waxa uu ku riday baskoolada, balse eber ayay ahayd, waxa ayna bilaabeen inay ku qoslaan. Ramyong ayaa u sheegtay cid kasta inay khiyaantay, lana tijaabinaya dagaalyahanada daacadnimadooda. Guddoomiyuhu waxa uu ahaa qof iska dhigaya, laakiin Ryang waa guddoomiyaha dhabta ah. Waxaa daawanaynaa xilligii uu Joy badbaadinayay Rumyong kooxaha, waxaana uu u sheegay Joy inuu ka mid noqdo ciidankiisa, balse waa uu iska diiday. Ryang waxa uu u soo bandhigay dalab kale, waxa uuna u soo jeediyey in ay dagaalamaan. Haddii uu guulaysto, Joy uu aadi doono meesha uu rabo, haddii uu guuldarraystana uu noqon doono adeega. Waxa ay bilaabeen dagaalka, waana isku soo boodeen. Filimkeenu waxa uu isku rogayaa Joy oo xiran dharka ciidanka, guddoomiyaha oo saaran faraskiisa, keligiisna laynaya ciidamo ka soo horjeeda. Mid ka mid a cadowga ayaa seeftu ka jabaysaa. Waxa aanu baranaynaa gurigiisa, halkaas oo ay ku egyahay filimkeenu maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddaan nala soo gaadhay dhammaadka, fadlan si sharaf leh waxaa kaaga codsanaynaa inaad sabskraybta dhacnoo siisid. lagtaada waa noo dhiirigelin. Komentigana nagula wadaag haddii uu jiray saaxiib yaraantaadii ilaa weynaantaadii as dagaali jirteen sida Joy iyo Chart.